Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibada qiimaha badan soo dhowaada. Su-aal ayaa waxay soo weydiiyey dhanka WhatsApp-ka ah. Fariintii hadda WhatsApp-ka maana yani kama duubi karo. Sidaa daraaddeed qofa wuxuu soo weydiiyey qoraalka noocaana. Walaal waxaa ayaamaha dambe lagu waashay game la yiraahdo la ciyaarayo oo lacag badan laga faa'iidayo. Waxaana la yiraahdaa markaan magacaan ii soo qoray X1 bet waxaan ku qoran marka ka soo hadal yani si ummaddu ay yani wax uga ogaato ka soo hadal. Hagaag marka hore waa inaan isla ogaanaa waxaan horta gamekani muxuu yahay. Midna aan isla ogaano geemamka la ciyaareen qarashka ama lacagta lagu bixinin ee sida caadiga ah loo ciyaaro ama maaweelada iyo madadaalada laga dhigto wax dhib ma lahan. Aslan ciyaartu waxa weeyaan inay bannaan tahay haddii aanay ku jirin wax sharciyada ka soo horjeeda. Mar haddii wax sharciyada ka soo horjeeda ay soo galaan waa eber. Su'aalaad goor waxa la ciyaari jiray PUBG-da waxaa soo galay waxa la yiraahdaa sanam markaa bay noqotay wax markaa mamnuuca. Laakiin sideeda kale oo iska caadi haddii waqtigaada aad ku baabi'ineen salaad iska mashquulinayn la isku aflagaadeenin qamaar ahaan aan lacag lagu kala dhiganin ama sharad lagu galin yani waxaasoo dhan marka sida kale wax dhibaata ma lahan biidnillah. Aniguna sheekh maahi muftina maahi caalimna maahi nin cilmi badan oo hadda wax yani tiro badan sheegi kara ama caddayn karana maahi. Laakiin wixii culummada ka dhaheen يعني وحي يعني جرى مركز bulshada dhexdeeda ka jira ayaan insha Allah ta'ala isla ogaan doonaa. Hagaag aan isla fiirino horta ciyaartan maxay tahay. Halkan waa Wikipedia الموسوعة الحرة macluumaad badan ku qoran dabcan. Waxaan isla fiirinaynaa 1xbet kan waxa ay tahay gamekani waxa uu yahay. Horta aan isla eegno marka hore meeshan wax ku saabsan ama halkan qaybtan wuxuu yiri alsonono kasto sidoo kale waxa loo yaqaan 1x corp n.v dhibicdaas macnaha magacaas uu leeyahay. Sidoo kale waxa loo yaqaanaa ku yiri 1xbet waa online gambling company. wuxuu ku yiri waa qamaar yani qamaar la ciyaar qamaarka caadiga taqaanay xaaraanta ahaa oo online ah shirkad ka shaqeysa. Shirkadani waxaa la aasaasay 2007 ayaa la aasaasay. waxay ka diiwaan gashan tahay Qobrus 2019kii waxaa ku dhacay waxay yani heleen ama sarakac ay heleen ama kobaca shirkadii soo gaaray kadib markii ay xiriir la yeelatay ama ay yani xiriir lahaadeen shirkadahan Chelsea iyo Liverpool ka hor inta markaasi meesha wuxuu ku sheegayaa arrimo kale taana ma qusayso. wuxuu sheegayaa halkan in laga mamnuucay wadamo badan laga mamnuucay website-ka yani ka shaqeeya gameka noocaaniya waxaa laga mamnuucay wadamo badan oo ay kamid tahay waxaa kamida Ruushka. waa kan eeg 1xbet is blocked in Russia, Ukraine and in other countries. waxaa laga mamnuucay Ruushka, Ukraine iyo wadamo kale. shirkadanina markaasi waa shirkad gambling ka shaqeysa oo yani maxaa la yiraahdaa gambling-kuna waa taqaanana waa qamaarka. halkan isla eegno website-ka nuuciisa waa private maaha public available in waxaa laga helaa ama ku baxaa Englishka iyo Russian-ka labada luqad. waxaa la aasaasay 2007 halka headquarter-kooda ama halka asaasiga ah al-maqar ra'iisi ama saldhigoodana waa Qobrus. 134 dowlad ama wadan ayaa laga heli karaa dabcan isleeyahay. owner dadka iska leh waxa weeyaan Sergey Karshkov, Roman Semokhin, Dmitry Kazarin. dadkaasi sidoo kale waxaa kamid ah dadka qaybta ka ah raggan magacyadooda halkan ay ku qoran yihiin ee Russian-ka. maxay tahay shirkadani waa online gambling waa qamaarka online-ka ah halka waxa ku qoran betting and gaming. waa bettingku waa rihaanka ama waxa la dhigto iyo gaming oo ciyaara. intaas way nooga filan tahay taariifinta iyo qeexitaanka shirkadani waxa ay tahay. hagaag ciyaaraha la midka ah ee isku dariiqada ay yihiin ee online qamaarkana waa la mid ayaguna. haddaba qamaar waa naqaanaa waxa uu yahay. okay in lagu ciyaaro qamaar maxaa la yiraahdaa si online ah maxaa loo yani xukunkeedu muxuu noqonayaa. su-aashan mar hore ayaa waxaa ka jawaabay Daarul Iftaa oo culummo fara badan ay yani ka hadlayaan. su-aashu wuxuu yiri wiilkan
xilliyadii dambe waxaa ku faafay dhalinyarada dhexdeeda game la yidhahdo poker. waa game ay yacni hal qof ka badan ayaa dheelaya, hal mar ay wada dheelayaan, waana game qamaar ah. lacag haraa wahmi ah oo aan jirin ayay ku cayaarayaan, oo dhibco kale u eg tahay. kadib arrintii way sii hormartay ilaa qofku markuu khasaaro uu u baahnaanayo lacagtaasi si uu geemkii u dhammaystiro oo qamaarkii u dhammaystiro. lacagta ama dhibcahaasi ayuu markaa wuxuu ka iibsanayaa qof kale oo haraale ama dhibcahaas haysta ayuu ka iibsanayaa, isagoo weliba uga iibsanaya lacag muqaabil nuquud xaqiiqiya yatasalamuha biyadi, uu gacantiis ku gadoomaya. qof kale uu lacag saxa siinaya, dhibcihii ayuu ka iibsanaya. tusaale wuxuu yihi $500 oo wahmi ah ayuu iibsanaya oo aan jirin, oo dhibcaha yani meesha ku jiro game ku guda jira ah, wuxuu ku iibsanayaa $5 oo urduni ah. arrintaana aad bay uga dhacday waddanka Urdun. qofka macnaha su-aasha weydiinaya Urdun jooga ama waddanka Jordan, haddaba maxay tahay buu leeyahay xukunka arrintani, lacagta waxaa lagu kala gadanayay maxay noqonaysaa? jawaabtii waa tanaa. haddaba horaan kugu sheegay inaanan ahayn caalim cilmiga yaqaana ama qof yani ummadda wax dheer aanan ahayn, laakiin kaliya waxaan kuu sheegaya wixii culummadu ka yiraahdeen si aad u ogaato waxa xaaraan tahay waxa aan xaaraan tahay. culummadu waxay dhahaan alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. geemkani kama marnaa layidhi laba arrin min maxduurayn ithnayn. kow, inuu qamaar yahay oo markaa laga helaya lacag ama la khasaarayo lacag saxa weliba oo geemka lagu bixinayo. taana kama qarsoona baa layidhi inay xaaraan tahay, dhammaan muslimiintuna way ogyihiin arrinkaasi. allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aan ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali shaytaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun. aayad 9 suurat maa'ida. ilaahay wuxuu leeyahay khamaar yacni khamrada iyo maysirka oo ah gamblinka ama maxaa la yidhahdaa qamaarka, ansaabta iyo aslaamta waa wasakh camalka iyo hawsha shaydaan ka mida ee ka fogaada. waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan. taa waa mid. ama waa inay ka kooban tahay si xaqiiqa oo dhaba maxaa la yidhahdaa muqaamarada ama qamaarka. sidoo kale taasi waxay noqonaysaa marka in la sameeyo lagu dhiirado xumaantii ama shaygii muxaramka lana xalaalsado iyadoo geem iyo madadaalo iyo baashaal laga dhigayo. taana shaka kuma jiro buu leeyahay sheekhu ama culimmadu ay leeyihiin faraha badan ee arrintan ka jawaabaya ama su-aasha jawaabta ka bixinaya, fadwada bixinaya inay xaaraan tahay. shareecadana xikmadda badanna waxaa ku yimid in dhammaan wixii caadaadka gaalada ah ama dadka fisqiga iyo fasahaadka lagu yaqaano wixii ay ku shaqo leeyihiin oo hawshooda ah in markaasi ay xaaraan tahay. gaalada in laisku ekaysiyaa ay xaaraan tahay. qur-aankana wuxuu ilahi subxana wataala ku leeyahay suuradda shuuraa ama suuradda ashuura aayaddeeda 15 walaa tattabic ahwaa'ahum, ha raacin kuwa dhumay oo baadiyeysan, hawadooda ha raacin. sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu leeyahay man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, rawaahu abu daawuud. qofkii isku ekaysiiya qoom iyaga ayuu ka mid yahay. fuqahadeennana waxay sheegeen inay xaaraan tahay in laysku ekaysiiyo caadaadka dadka fisqiga iyo fujuurka u saaxiibka ah, xitaa asalka arrintaasi ha ahaato mid bannaan. dabcan halkaa marka waxaan ka fahmaynaa in qamaarka waxa la yidhaahdo ama cayaaraha geemka la cayaaro ee markaasi ah online-ka lagu cayaaro inay yihiin xaaraan. wiilku waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid a wuxuu yidhi yar saaxiibkaya baa ku waalan. wuxuu yidhi habeen waxaan xasuustaa buu yidhi lacag $800 ku dhow uu ka helay. kadibna waxaan ku iri wala lacagtan xaaraanta maxaad ku samaynaysaa? wuxuu yidhi lacagta xaaraantan uma isticmaalaye wax kale aan ku gadanayaa, wax kale ayaan ku gadanayaa. marka walaal, qofkii wuu ogyahay wixii inay xaaraan yihiin, haddana dad baa lacag ka samaynaya oo inay lacag ka faa'iidaan doonaya oo markaasi sidaasi hawshaa ku galaya. haddii aan saaxiibayaal su-aashan ku qorno youtube-ka waxaa inoo soo bixi doona dadka ka hadlay, yacni waa maxay aan dhaho wax badan ka ogow buu leeyahy qofkan. sidoo kale qofkan wuxuu sida loo samaysta applicationka qaab fudud. wuxuu yidhi geemka ugu fudud uguna lacagta badan $1 ku samey $100 saacad walba. waxaan ciyaaray 5 geem ee ugu fiican. wuxuuna yidhi lacagtii aan ka helay wax ka baro handicap. waa maxay handicap?
waa maxay unexpected jackpot qaybta koobaad. dad fara badan ayaa ka hadlay. haddaba walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa, ummadda qamaar ha u xayisiinina, meel xunna waxaa ka raadinina. ilaahay subxaanahu watacaala arsaaqadiina wuu qoray. waxaan aan yacni wanaagsanayn ee xumaanta ah ee markaasi qamaarka ah ee xaaraanta inay tahay la wada ogyahay, cid walibana ay ka warqabto. lacag walboo si fudud lagu helaa waa la ogyahay inay xaaraan tahay. lacagaan juhdi iyo dadaal aanu kaaga bixin, marka laga reebo hadiyad iyo qof inuu shay kuu hibeeyo, marka laga reebo. haddaba walaalayaal, ilaahi subxaanahu watacaala aan ka xishoonno oo aan ka waantowno waxa noocaasiya inaan ku kacno ama aan samayno maxaa la yidhaahdaa arrin noocaasiya inaan samayno, sababtoo wax wanaagsan maaha. qamaar la wada ogyahay oo loo jeedo ayaan leenahay dadka loo xaysinaya ama loo baraarujinaya inay ku koro yacni galaan ama ay ka shaqaystaan oo howlo noocaasiya ay qabtaan, waana wax laga fiican yo aada u qaab daran. marka insha allahu tacala walaalkaas waxaan filayaa inuu helay jawaabtiisii oo dhammaystiran. muuqaalkii u dambeeyey 39 qof aa comment kasoo dhiibatay. samiire aadan, keep going ogaalka dunida 1 milyan ayaan kuu rajeynaya. waa mahadsan tahay. khayr jacel maasha allah. xitiri assalaamu calaykum walaalka khayrka jacel. aamin wacalaykum salaam. golden voice keep going bro. waa mahadsan tahay walaal qaali. almaas raxma waxay tiri keep going. assalaamu calaykum raxmatullahi barakatu. anaa min almaqrib sakan. qofka labaadana uu leeyahay axmed caamir. waa mahadsan tahay. xasan wuxuu yidhi walaal waxaan jecelahay adigoo qur-aanka akhrinaya. waa mahadsan tahay walaal qaali. anisa mahadsanid walaal ayay tiri allah ha ku xafidika wadaama ogi 100% maasha allah. mahadsantaha walaal. cabdixafiid alle waa naxariis iyo dembi dhaaf badaya. mahadsanid. sala allahu caleyhi wasalam. kingii yoso sala allahu aleyhi wasalam saasuu noo soo qoray. maxamed axmed wuxuu yihi maasha allah hore u soco. safiya waxay tiri mahadsanid walaalkay. waa mahadsantaha iyadana. ismaaciil maxudiin wuxuu yihi keep going. waa mahadsantaha walaal. cabdiraxiim wuxuu yihi walaal runtii dunida anigoo gurigeyga jooga ayaad ila socodsiisaa. tankis waa mahadsantaha walaal qaali. maxamed wuxuu yihi tankis maxamed maher. waa mahadsantahay. saare cabdullahi ustaad mahadsanid. waxaa la yidhahdaa mooha wuxuu leey assalamu calaykum walaal. waa mahadsan tahay sida qurux badan barnaamijyada muhiimka noogu soo. waa mahadsan tahay. raage ibraahim janalka ogaalka dunida sakin walba waan la socda. mahadsanid walaal qaali. saalim wuxuu soo safiya yaasin walaal iisoo duceeyay. waxaan ahay xaas muddo 5 bilood ayaan guri leeyahay. 5 bilood dhiig baa iga socda, waa niyad jabsanayso. ilaahay subxaanahu watacaala walaal noloshaada mid qurux badan kaaga dhigo. caafimaad taaban allaha ku siiyo. dhaqaatiirta u tag, la tasho. ilaahay subxaanahu watacaalana bari inuu kheyr ku siiyo oo wadada wixii wanaaga ilahay inuu kugu toosiyo oo markaasi aad ilaahay subxana wataala caafimaad ka hesho insha allahu tacala. wadna caafimaada doonta walaal. maxamed amiin wuxuu leeyahy baro weligaan ha fududaysan walaal caafimaadkaaga. haddii wax dhibaad aragto la xiriir dhakhtarka. sidoo kale qofkaad u kalsooni badan tahay la hadal, u sheeg dhibka jira. ilahay idinka insha allah xal wada helaysa, sababto qofka sababaa laga rabaa inuu la yimaado. ilahay subxana wataala caafimaad ka bixiya. maxamed amiin wuxuu walaal noo soo baday. kolley waxaan kugu jeclaha waxyaabaa aragtay leh waa mahadsan tahay. cabdifataax nabiga ula salay sala allahu aley wasalam. qadan jaamac maanta waa farxad weyn, qofkii lixaadaa noqday. waa mahadsan tahay. cabdimaalik 3 shay lama qarin karo. qoraxda dayaxa iyo qaansarabaadka. mahadsan tahay. bile wuxuu yihi walaal waa maxay suknaami. walaal waa sonaami, waa daadadka xooga badan ee dhaca. macnaha dhulgariira dhacay. muuqaalka haddaan kasoo hadalnay hore, dhulgariirku markuu dhacayna wuxuu sababay sonaami malaha. sidaasaan isleeyahay. munir wuxuu yihi subxaan allah sonaamigu waa maxay. oo sofiya axmed ay tiri sakan. safiya axmed aad soo qortay. yaxya ibraahim subxaan allah. ibnu moha wuxuu yihi noloshu kuma xumayso walaalkay. mahadsanid walaal qaali. maasha allah saaxib noo soo baday yiri axmed cabdalla. mahadsanid. waa aniga waxay tiri bin isaar. oo mahadsantaha walaal qaali. marka intaasaan kusoo koobaynaa muuqaalkeena. aliska ilaaliya qamaarka xaaraanta ah iyo wixii la xiriiro dhan. insha allahu tacala waxaan rajeynayaa inaad barnaamijkan ka hesheen. like saar haddaad ka heshay. haddaad ka cusubtahay kanaalka kusoo biro subscribe dheh. sidoo kalena ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkeena. waa inoo muuqaal kaloo xiise leh. fii amaan illah. guuleysta. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.